السلام الله عليكم ميل كستو دوني ديكا جوكتان وولالكين درس حسن محمد بيج كايغا داوانا سوا درس قصو بيج اوفيشيال sidoo kale waxaad kala socon karaysaa kanaalkayga YouTube-ka ee درس قصو channel official muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa afar dhacdo oo aad u la yaab badan afartan dhacdo oo runtii qofka daawada uu aad u la yaabi doono muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka aan ku leeyahay subscribe saaro kambalelkana furo waayo waxay ka caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo dhigo mahadsanid muuqaalkeena koobaad waxaan ku bilaamayaa sida tan taayirkan waxa uu ka soo fakaday gaari lugtiisa kadibna waxa uu galay meel lagu shirayo oo xafiisa kadibna sidoo soo socdo ayuu waxa kaga dhacayaa inanka madaxa waana la isku soo baxaya oo waa la yaabaya oo waxa leeyahay maxaa soo tuuray taayirkan waayo cidba ma soo tuurin taayirkan muuqaalkeena labaad gabadhan telefoon ay iskaga hadlaysaa waxbana war uma hayso meel dhulka ayaa hal mar la go'aysa oo waxay ku dhacaysaa hog aad u dheer dadkii oo dhan ayaana iskugu soo baxaya xataa kuwii baabuurta watay ayaa istaajinaya oo isle gabadhan bal caawiya waxa ku dhacay waayo maadaama ay ku dhacday god aad u dheer markii waxba laga qaban kari waayo uu godkuna aad u dheeraaday waxa lagu wacay qoladan gargaarka degdega ee dabka ama dhibaatooyinka ku hortaga kuwaas oo soo qaatay salaamada dheer si ay gabadhan meesha uga soo saaraan muddo kadib waa laga soo saaray meeshii oo iyada oo bad qabta ayaa laga soo saaray waayo telefoon ayaba ku jeeday muuqaalkeena saddexaad waa dhul iska caadiya oona waxba qabin laakiin hal mar ayaa amarka ilaahay dhulku oo hal mar soo butaacay fulkaane ama saliid aad u kulul taasoo xataa gabadh meesha maraysay khatar u gashay in ay ku dhimato waxyaabahan meesha ka soo butaacay ama kiimikada ka dilaacday dhulkan iska caadiga ah muuqaalka ugu dambeeyay waxaan ku bilaamayaa sida tan ninkani waxa uu saaran yahay gaarigan marka uu arkay inuu ku beegan yahay tareenka xilligii uu soo marayay gaarigii wuu iska tuuray oo sida aan wada arkayno wuxuu yiri yuna adiga oo gaariga saaran tareenku ku marin waayo wuxuu arkay tareenkii oo soo socda gaarigiina bareega waa u qabsan waayay sidaas ayuuna kaga badbaaday gaarigiina waxba ma noqon oo sida aan wada arkayno gaarigii oo nabad qaba ayaa meeshii dhaafay tareenkiina isaguna si nabada ayuu ku gudbay laakiin ninkii dhulka ayuu isku tuuray isagoo ka baqanaya in uu jiiro tareenkani muuqaaladan inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa muuqaaladani haddii ku cajab galiyeen fadlan share oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid